الله تعالى وبركاته. dhammaan akhyaarta fiidiyogan daawan doonto barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijka ugu magacdarnay horumari naftaada. waa barnaamij ay idiin soo diyaariyaan gruupka Lajaan Online. barnaamijkan waxaan maanta ciwaan uga dhignay oon kusoo qaadan doonaa haddii alla yiraahdo horumari shakhsiyadaada, oo ah barnaamij aad iyo aad oo xasaasi ah. qodobkan waa qodob aad u muhiim ah, qof kastana laga doonayo inuu horumariyo shakhsiyadiisa. qaabka aad u fikirto iyo waxa aad ka fikirto ayaa qayb weyn ka qaadan kara horumarka shakhsiyadaada. haddaba shakhsiyadda waa maxay? waa su-aal isweydiin mudan. shakhsiyaddu waa habka iyo hanaanka fikir, dareen iyo dhaqan kaasoo qofka u ekeysiinaysa hadba bulshada uu la nool yahay ama mid uu asal ahaan kasoo jeedo. marka waxaa loo baahan yahay qofka shakhsiyaddiisa inuu horumariyo. sidaan ku horumarin karaa shakhsiyaddeeda? waa su-aal isweydiin mudan. shakhsiyaddaada waxaan kuu sheegi doonaa tallaabooyin ama qodobo haddii aad raacdo oo si ay yihiin aada u raacdo aad ku najixi doonto, oo ah kuwa horumarin kala shakhsiyaddaada. tallaabooyinkan waa kuwa horey loo soo tijaabiyey dadkii guulaha nolosha ka gaaray. tallaabooyinka ay raaceen ee noloshooda ka bedelay ayaan isku daynay inaan in badan kala soo koobno. maaha wax lasoo koobi kara, laakiin inta muhiimka ah ayaan jecelnahay inaan idiin soo gudbino insha allah. tallaabooyinkaas, tallaabada koowaad ee haddii aad doonayso inaad noloshaada wax ka bedesho, haddii aad doonayso in shakhsiyaddaada aad horumariso, aan ku leenahay raac waxaa weeye ku dadaal cibaadada alle subxaanahu wa tacaala. guul ka weyn ma jirto aakhiro iyo adduunba inaad allah subxaanahu wa tacaala xiriir aada la yeelato, waayo ibni aadamka waxa loo abuuray ayaa ah cibaadada alle subxaanahu wa tacaala. inaad allah caabudo, ku xirnaato oo waxa lagaaga baahanya. allah subxaanahu wa tacaala aayaddiis qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. marka taas aayadda qur-aanka waxaan ka dheehanaynaa in waxa noola abuuray ay tahay cibaadada allah subxaanahu wa tacaala. saas awadeed ku dadaal xirnaashaha allah subxaanahu wa tacaala, inaad markasta wanaagso xiriirka kaa dhexeeya adiga iyo allaha. waa midda aada aakhiro adduunka ku guulaysanayso. qodobka labaad ee aan soo qaadanayno ee ka mid ah tallaabooyinka ugu horumarinaya shakhsiyadda waa noqon dhegayste wanaagsan. macnaheeda maxaan ugu dan leenahay? dhegaysiga dadka waxaad ka faa'iidaysaa aqoon. qofka aad dhegaysanayso wuxuu ka helayaa kalsooni, wuxuu noqonayaa qofku jecel, sidoo kale qof ku xiiseeya. adigana waxaad ka helaysaa aqoon. wax ka wanaagsan ma laha marka bulshada dhexdeeda inaad ka noqoto qof la jecel yahay, qof la xiiseeyo, qof markasta ay dadka raadiyaan. waa midda ay ibni aadamku dhammaantood ay doonayaan. saas awadeed guusha ugu weyn ee taas laga gaari karo, qodobka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo ay noqoto dhegayste wanaagsan. waana qodobka dadka qalbiyadooda lagu xado. qodobka saddexaad ama tallaabada saddexaad ee aan soo qaadanayno ee ah tallaabooyinka lagu horumarin karo shakhsiyadda waa wax badan akhri. wax akhrisku waa qodob aad iyo aad u muhiim ah. waxa bulshooyinku ay ku kala horumaraan, waxa dowladuhu ay ku kala horumaraan, waxa ashqaasa oo shakhsiyaadka ay ku kala horumaraan ee guulaha ay ku kala gaaraan, waa qofba qofka kale intuu wax ka akhris badan yahay, bulshada kale intay wax ka akhris badan tahay. inta aada akhrido ayay leeg tahay xogta aada hayso iyo aqoonta aada leedahay. sidaas awadeed waxaa looga baahan yahay marka inaad in badan wax akhriso, si in badan qof la raadiya aada u noqoto oo bulshada dhexdeeda miisaan ku leh.
waayo haddii aad aqoon badan leedahay ee aad garanayso wixii lasoo dhaafay iyo waxa maanta joogo, waxaa tahay qofka la doonaya ee bulsho kasta ay doonayso. sidaas awadeed wax akhrisku waa qodob aad iyo aad muhiim ah, lamana soo koobi karo. marka waxaan kugula talinayaa inaad in badan wax akhriso, waqtigaaga aad wax akhris geliso. tallaabada ku xigta ee ka mid ah tallaabooyinka horumarinta shaqsiga waa yeelo fikir. maxaan uga daleynahay inaad yeelato fikir togan, fikir wanaagsan, fikir positive ah ee bulshada dhexdeeda lagu qadariyo, saaxiibada ay kugu qadariyaan fikirkaada iyo oraahdaada wanaagsan. waa wax keeni kara in shakhsiyadaada ay kor u qaadato. waxaa lagaa baahan yahay mar kasta inaad noqoto qof loogu soo hagaago fikir toosan, fikir wanaagsan, fikir aan ahayn mid taban. marka ku dadaal mar kasta inaad yeelato oraah wanaagsan iyo fikir wanaagsan. tallaabada kale aan isleeyahay waxay wax ka bedeli kartaa shakhsiyadaada, waxay keeni kartaa inay horumar ku dhaco naftaada. waxaa waaye la kulan dad cusub. maxaan wada leenahay mar kastii aad la kulanto dad cusub waxaad ka faa'iideysaa oraahyo, fikiro iyo aqoon aadan horey u lahayn. inaad la kulanto dad cusub waxay kaa caawinaysaa in noloshaada ay noqoto mid xiiso leh maalinba maalinta ka dambayso, waayo dadka aad la kulmayso waxay wataan fikiro, oraahyo iyo aqoon aadan horey u lahayn. taasna waad ka faa'iideysanaysaa. tallaabada xigta aan isleeyahay waxay wax ka bedeli kartaa horumarkaaga. waxaa weeye noqo qof ku qanacsan shakhsiyadiisa, laakiin wax ka bedel habdhaqankaaga. ma jiro wax ka wanaagsan inaad ku kalsoonaato naftaada qof kale ee aadan noqon qof kale isku ekeysiiya. waxaa loo baahan yahay marka in aad ku kalsoonaato naftaada, isla markaana aad noqoto qof leh shakhsiyad gooni ah, qof had iyo jeer ku dadaala hibooyinka iyo himilada uu leeyahay ee u gaarka ah ee uu kaga duwan yahay dadka kale. ku dadaal marka ay shakhsiyadaada ay gooni ku ahaatay, laakiin had iyo jeer wax ka bedel habdhaqankaada si mar ka dambeyso horumarkaaga uu usii siyaado. tallaabada xigtay aan soo qaadanayna ee ka mid ah tallaabooyinka qofka horumarka u keeni kara shakhsiyadiisa waxaa waaye noqo qof dhoola caddeyn badan. dhoola caddeynta waa qodob aad iyo aad u muhiim ah. waa qodob wax ka bedeli kara qofka shakhsiyadiisa. qofka dadka markay xanaaqsan yihiin, marka ay murugaysan yihiin, ka qosliya ee hadba jawigaas liito ay ku jiraan ugu bedelo jawi ka wanaagsan. bulshada dhexdeeda aad baa looga jecel yahay, looga xiiseeya. marka waxaa lagaga baahan yahay inaad noqoto qof had iyo jeer dhoola caddeyn badan, qof bulshada dadka soo jiidan kara oo hadba bulshadii ugu taga la noolaan karo. qodobkeena ugu dambeeya aan soo qaadanayna ee qodobada horumarinta shaqsiga waa inaad noqoto qof sheeko wadaag fiican leh. waa inaad barato habka iyo hanaanka dadka loola hadlo. waa inaadan noqon qof qanjilaad badan, qof ka cabsada dadka inuu usoo gudbiyo fikirkiisa iyo araahooda. sidaas si la mid ah waa inaadan noqon qof dood badan, waa inaad iska ilaaliso dooda. waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu garto qofka aan xogta badan hayn, qofka aanan awood u lahayn inuu dadka si fiican ula hadlo. aan filayaa inaad ka bogateen, aad ku dabaqi doontaan naftiina si aad horumar badan aad uga gaartaan, shakhsiyadiinana ay noqoto mid miisaan leh oo guulo badan gaarta. aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay daawashada video.